xarunta xanaanadii waxbarashada agoonta ee Rajo waa xarun waxbarasho lacag la'aan ay ka helaan caruur agoona iyo kuwa ka soo jeeda reeraha saboolka waxaana si mutadawacnimo u hirgeliyay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway kuwaas oo ka damqaday baahiyaha iyo duruufaha adag oo dhinaca nolosha oo ay qabaan caruurta agoonta ee ku nool magaalada Muqdisho xarunta Rajo oo ku taala degmada Yaaqshiid oo hadda furan ilaa 3 bilood ayaa waxa ka faa'iido waxbarashada bilaashka iyo daryeelka dhallaanka halka lagu xanaaneeyo ilaa 120 caruur ah oo ka soo jeeda agoon iyo qoysas danyar ah oo iska badaa inay caruurtooda qarash waxbarasho ka bixiyaan dabkooda u duugan yahay caruurta lagu xanaaneeyo iskuulka Rajo ayaa ka kala yimaada degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir sida Kaaraan, Boondheer, Holwadaag iyo Xamar Jajab booqashada iskuulka aan ku tagay ayaa waxaan ugu horreyn la kulmay qaar ka mid ah caruurtaas oo aan weydiiyay waxa la baro Cabdullaahi Xuseen Xasan waxaan ka imaadaa Xamar Jajab anigoo dugsiga Rajo dugsigu wuxuu ku yaalaa degmada Yaaqshiid waa tahay maxaad barataa marka waxaan ka bartaa Soomaali xisaab saynis carabi cilmi bulsho ciyaalka agoonta wax ka barto lacag lamana qaado maqs maxamed Awkar haye degmada Yaaqshiid dugsiga saddex sare ee Rajo haye maxaad ku barataa tadawmaad iskuul lacag la'aan ku bartaa wax lacag ma qaat anigu magacayga Cabdirasaaq Axmed waxaan wax ka dhigtaa dugsiga Rajo fasalka afraad degmada Kaaraan xaafadda Arkitiin iskuul agoon lacag wax lacagna ma qaat haye maadooyinka dhigta maxaa kamid ah Arabiga sayniska social science iyo cilmi bulshada Soomaaliya tarbiyada waxbarashada ka sokow caruurta halka lagu daryeelo waxay helaan oo la siiyaa quraac iyo qado si ay baahi u tabin xilliyada waxbarashadooda waxaana caruurta la baraa maadooyin fara badan oo ay xitaa ku jiraan xifdinta Quraanka Kariimka iyo barashada ahkaamta macallimiinta dugsiga agoonta ee Rajo wax ka dhiga ayaa gaaray ilaa 10 macallin oo isugu jira rag iyo haween kuwaas oo caruurta ku kontroola maadooyinka ay u dhigaan Iqra Cusmaan Cabdullaahi waa mid ka mid ah macallimiinta gabdhaha ee xarunta agoonta wax ka dhiga waxaan weydiiyay siday u socoto waxbarashada caruurta agoonta iyo kuwa tabaaleysan ee wax ka barta waxaan ka tirsanahay macallimiinta iskuulka agoonta ee Rajo waxaan ka dhigaa maadooyin kala duwan dhamaan way isugu jiraan degmooyinka magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir laakiin waxay u badan yihiin degmooyinka dariska sida Boondheere degmada Yaaqshiid ee iskuulka uu ku yaalo Kaaraan waxa jira arday ka timaada Xamar Jajab Holwadaag degmooyinka kulli way isugu jiraan laakiin waxa u badan ardayda dariska degmooyinka dariska ka yimaado waa tahay marka iskuulo badan waxa jira agoona iskuulkeena muxuu kaga duwan yahay waxyaabo ugu duwan yahay way jiraan sababtoo ardaygii aan awoodin dharka inuu iibsado waa loo iibiyaa buugaagta ardayda waa loo iibiyaa ardaygii aan awoodin bareegooda waa la siiyaa quraaca loo sameeyaa iyo qado hadda iskuulka boarding ma aha laakiin waxa la rajeynayaa mar dhow inuu boarding noqdo oo ardayda la soo xareeyo halkaana jiif iyo cunto iyo wax kasta ay ka helaan maamulaha xarunta agoonta Rajo Cabdiraxmaan Maxamuud Xasan oo aan wareysi la yeeshay ayaa iiga warbixiyay ardayda waxbarashada ka faa'iida iyo cidda aasaastay xaruntaasi iminka iskuulku wuxuu leeyahay 120 arday ah oo isku jir ah oo lab iyo dhidig ba isku jiro xaqiiqdii iskuulkan waxa aasaasay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool dibadda gaar ahaan dalka Norway waxa dhacday in dhowr habeen iyo dhowr maalmood waqti la geliyay sidii ummadda Soomaaliyeed loo kaabi lahaa ama loo caawin lahaa waxa la isweydiiyay dhinacyo badan waxa markii dambe soo saramartay in laga caawiyo waxbarashada ilmaha agoonta ah iyo kuwa danyarta ah aysan heli karin xilligan waxbarasho bacdama waxbarashadu ay noqotay lacag qiimaheeduna aysan awoodin hooyada hadii ay mar 5 caruur dhasho waxaad qiyaasi kartaan ardaygan uu yahay iskuulkii $15 inaysan awoodin hal cunug xataa inay waxbarasho geyso sidaas daraadeed ayaa dhalinyaradaasi markay maskaxdooda shiileen waxa u soo kormartay in la furo iskoolo badan oo laga furo gobolka Banaadir
taasoo lagu xaqabtirayo baahida kuwa danyarta ah iyo agoonta waxaana ku bilownay ardayda agoonta ah waxaan ka furnay degmada Yaaqshiid sidoo kale maamulaha waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in iskuulku uu shaqo abuur u yahay dhalinta da'da yar ee idleysatay waxbarashada sare isagoo ii raaciyay in gabdho yar yar oo aqoon leh ay macallimiin ka yihiin xaruntaasi iskuulku macnihiisa kaliya ma ahayn furitaanka iskuulka waxay ahayd shaqo abuurka dhalinyarada ama da'yarta Soomaaliyeed iyaduna in looga faa'iideeyo maanta ummaddu ama bulshadu waxay u hayaantay waxbarasho waxaad arkaysaa gabdho yar yar iyo wiilal yar yar oo teenager oo u hayaamay inay wax bartaan waxaa nasiib daro noqonaysa haddii ay waxbarashada soo dhameeyaan hamigooda haddii ay waayaan meel ay kula laabtaan ama shaqooyin sidaas daraadeed ayaa waxay ka noqotay qayb ka mid ah shaqo abuur macallimiin badan oo isku jir ah haba u badnaadaan dumar dumarkuna waxay u baahan yihiin waxa la yiraahdo encouragement markay jaamacadaha ka soo qalin jabiyaan waxay u baahan yihiin dhiirigelin in waxa ay bartaan inay wax ku heli karaan horta ay aaminaan magaalada Muqdisho waxaa ku nool caruur agoon ah caruur waalidkii dhalay uusan awoodin inuu ka bixiyo tasiilaadka waxbarasho kuwaasoo aad u jecel helidda waxbarasho lacag la'aan oo ay mustaqbalka dhigooda reeraha ladan kula tartamaan Farxiye Cabdalla Muumin Radio Ergo Muqdisho رجو كل وينو قبتي قضاء ولا سينا قرع ولا سينا ولا قار الله سيو إمام لياش معلمات كلهم أنت جوت قار الله سيو أوانتاس رجو أنا كوحدين قبتي أنت وحنا سودي قار الله سيو أدوي آخر الله سيو تام بسم الله الرحمن الرحيم وحن كمد هويوينك ضلay caruurta agoonta ah waxa ma hadnaqayna hay'adaha iyo macallimiinta iskoolka maamulayaasha rajo salaam alaykum arba aan u maadbiyo xafiiska Muqdisho shaqaalaheeda oo dhan meel kasta ay joogaan waxa kale oo rabaa inaan xafiiska Oslo oo Norway saldhigeedu uu yahay rajo organization inaan meesha ka xuso ayagoo kala ah magacoodii Cabdicaziis Maxamuud Faarax Kuuso Maxamed Maxamuud Cilmi agdege loo yaqaano Abubakar Maxamuud Faarax dhagay ayaa loo yaqaana Nuur Shariif Maxamuud Nuur Inji nambarka kale Sayla Bilowla Xasan iyo marwooyin fara badan ee halkan aan ku soo koobi karin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin sida nala shaqeeyeen xafiiskan annaga wakiil uga ah waxaan doonaynaa inay shaqadii meesha kasii laabaan howlna ma dhawo adeer waxaan qabanay dhiigga dayactirkeeda waxyaabo badan oo waxaa loo baahan yahay in samafal kale hadda aan kusii xijino waana soo socotaa الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الله رسول
سريت من حرم ليلا إلى أود ربي بارسكالي أود ربي بارسكالي الله أدنك محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم